السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وعنا ونكسن داوديال ميل بجوكتان كسو دوادا waxaan halkadii kusoo gudbinaynaa wararkii u dambeeyay caalamka iyo Soomaalida. Waa habeenimo Sabti ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 29 bisha Abriil 2022. Haddii aynu eegno qodobada wararkeena ugu door korona waxa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu kulamo xasaasi ah leeyahay gudoomiyaasha cusub ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Sidoo kale waxaa magaalada Muqdisho aad looga dareemayaa ololaha doorashada, gaar ahaan ololaha doorashada Saciid Cabdulaahi Dani oo si weyn looga dareemayo magaalada Muqdisho iyadoo oo dhanka kale isku dhacyo asaga iyo ku-xigeenkiisa u dhaxeeya laga dareemayo dhanka iyo Puntland. sidoo kale waxaa si weyn magaalada Muqdisho looga dareemayaa guud ahaan doorashada iyo halka ay ku dambeyn doonto doorashada madaxweynaha. sidoo kale Mareykanka ayaa yana bogaadiyay habka ay u socoto doorashada isagoo oo ku booriyay gudoonka baarlamaanka cusub ee dhawaan la doortay in uu si dhaqso ah ku dedejiyo isla markaana ay u doortaan ama ay u qabtaan doorashada madaxweynaha. qodobadaas iyo kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaan halkan ku maqli doontaan, waxaana barnaamijka qaybiga la saaxiibka wacana oo si weyn arintan ula socday. wacana ugu horeyn soo dhawow, bal maxay tahay kulamada xasaasiga ah ee uu la yeelanayo Ra'iisul Wasaaraha xubnaha gudoonka cusub ee dhawaan la doortay? aad baad mahadsantahay ilaysow. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa booqasho iyo sidoo kale hambalyo ugu tagay gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka iyo sidoo kale mudanayaasha ayaguna ku xigeenadiisa dhexe. arinta ugu tagay waxay ahayd sidoo is arag iyo sidoo kale afur iyo hambalyo intuba ayay isku jirtay. Ra'iisul Wasaaraha oo la afuray labada mas'uul ayaa gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka ugu hambalyeeyay mas'uuliyadda qaran ee loo doortay una rajeynayo guul. arintan ayaa imaanayso shalay markii doorashadii gudoomiye ku-xigeenada golaha baarlamaanka ee aqalka hoose la soo gabagabeeyay ayaa haatan Ra'iisul Wasaaraha sidoo kale xulufadiisa waxa ay bilaabeen in ay ka raadsadaan gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa waji fiican kaasi oo ay ku raadinayaan in qofka ayaga ay rabaan uu ku soo baxo gudoonka andhaha madaxweynaha dalka Soomaaliya. arintan waxaa looga dareemayaa si weyn magaalada Muqdisho iyadoo dhinacyada haatan u tartamaya xilka madaxweynaha ay bilaabeen kulamo gooni oo la qaadanayaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. sidoo kale Saciid Cabdulaahi Dani ayaa bilaabay haatan ololihiisa tooska ah ee uu ku raadsanayo xilka madaxweynenimada. maanta waxa uu la kulmay marwada gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka loo doortay, waxaana ay kulankaasi uu sheegay in ay is-afgarad ka gaadheen qaabkii lagu soo dooran lahaa Saciid Cabdulaahi Dani. arintan waxaa looga dareemayaa si weyn magaalada Muqdisho guud ahaanba, gaar ahaan waxaana la leeyahay cidda madaxweynaha ku soo bixi doonto dadka shacabka ah ayaa isweydiinayo qofka ayagu ay rabaan oo inta badan ayagu ay taageersan yihiin inuu ku soo baxo. qof walba fikirkiisa ayuu cabiraya. meelaha fadhi ku dirada marka tagto waxaa dareemaysaa qof kasta wuxuu saaran yahay qof oo leeyahay hebel ayaa soo baxaya. marka guuxa meel walba waa uu ka taagan yahay. waa tahay dhinaca kale Mareykanka ayaa waxa uu ku boorinayaa gudoonka cusub ee baarlamaanka in ay doorashada dedejiyaan. maxay tahay danta uu ka leeyahay Mareykanka in doorashada la dedejiyo? saan ogeynba dowladda Mareykanka ayaa bogaadisay doorashadii gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. waa kan gudoomiyihii hore qaabkii lagu doortay oo ahayd qaab aad u wanaagsan, amnigana uu ahaa amni laga taxadaray oo muddo dheer ay diyaarinayeen laamaha ammaanka inay si nabdoon ay ku dhacdo. gudoomiyaha golaha shacabka ayaa xogo isjiid kadib waxaa dhacday in la doorto gudoonkii iyo ku-xigeenadiisii. dowladda Mareykanka ayaana arintaasi si weyn u bogaadisay. doorashada aqalka baarlamaanka waa kan hoose iyo kan koro. marka gabi ahaanba Mareykanku haatan waxa uu leeyahay ku boorinayaa gudoonka golaha shacabka iyo kan aqalka sare sidii ay ku dardargelin lahaayeen ama ku dedejin lahaayeen doorashada madaxweynaha. arintaasina waxaa soo dhaweeyay sidoo kale safiirada beesha caalamka ku sugan xerada Xalane iyo sidoo kale dhammaanba beesha caalamka ayaa si weyn ugu saaxiibada Soomaaliya ayaa si weyn u soo dhaweeyay doorashadii dhacday, iyagoo dhanka kalena ka codsaday howlwadeennada doorashada inay dedejiyaan madaxweynaha doorashadiisa. waa tahay waxaa magaalada Muqdisho laga dareemayaa ololaha doorashada
iyadoo uu musharaxiinta qaar ee ugu horeeyo Siciid Cabdulaahi Dani ololihiisa si weyn looga dareemayo magaalada Muqdisho iyadoo aan ognahay in maalmahan lagu jiro diyaargarowga ciida maxay tahay waqti xaadirkan waxa ku soo beegay in ololahan xoogga leh ay ka wadaan iyadoo lagu jiro gabagabada bisha barakeysan ee Ramadaan saad waqtahayba doorashadu ayaaba dhacdayba gudoomiyaha baarlamaanka doorashadiisa iyo kan aqalka sare ayaaba dhacday xilli lagu jiro bisha Ramadaan xildhibaanada qaar ayaa la soo doortay bishan Ramadaan gudaheeda sidaas darteedna haatan waxba kama reebayso in madaxweynaha dib loo dhigay iyo sidoo kale in haatan la doorto xildhibaanaduna haatan waxay codsanayaan in howlwadeenada doorashada ay dedejiyaan doorashada madaxweynaha arintan ayaa muddo soo jiidmaysay saad ogeydba waxaa la rabay in la doorto madaxweynaha iyo xukuumadda dhanba Abriil sanadkan 2020 kowda marka arintaasina haatan waxaad moodaa in ay soo dhaafto xilligii loogu talagalay oo hadda muddo sanad iyo waxa ay hadda marayso marka xilligan lama sugi karo ayaa la leeyahay lamana rabo inay hataa bil ay qaadato doorashada madaxweynaha marka taasi ayaa sababayso in ay dedejiyaan oo la bilaabo xildhibaanada xubnaha u tartamayo xilka madaxweynaha inay kulamo la qaataan baarlamaanka sifo ay uga raadsadaan codko ay ka heli lahaayeen xildhibaanadaasi waa tahay waxaa xalay magaalada Muqdisho lagu dilay wiil dhalinyaro ahaa isla markaana samafala ahaa dhanka kalena ahaa majaajileyste ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed wiilkaasi xalay waxaa la sheegay in dabley hubaysan ay dileen balse booliska Soomaaliyeed ayaa war ka soo saaray dilka wiilkaasi bal maxay tahay sababta wiilkiisa loo dilay iyo cidda dishayba horta atooraha badda ninkan ku magaca dheer ayaa la dilay xalay fiidkii markii afurkii kadib waxaana dilay saaxiibkiis oo lagu magacaabo Lelefow oo ahna majaajileysta asaga laftirkiisa ahaay oo la dhigi jiray Filimani wax la mid ah ayna ka wada tirsanayeen ciidamada booliska ninkan ayaa la sheegay in ay isku qabsadeen lacag ay ka aruuriyeen ama la rabay in la siiyo dadka masaakiinta ah sidoo kale tana loogu talagalay in lagu ciidsiiyo ciyaalka yararka ay dhaleen ciidamadii booliska dhintay ee agoonta ah iyo sidoo kale agoonta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho sidaas darteed lacagtaasi ay isku qabsadeen waxaana uu Lelefow ka codsaday saaxiibkiis in uu siiyo lacagtaasi qaybta asaga ku soo aadayso arintaasi ayaana ka dhashay khilaafka muran dheer kadib waxa uu sameeyay Lelefow in uu biskoolada la soo baxo oo uu ku dhufto 3 xabadood kadibna biskooladii uu ku tuuro saqafka guriga marka arintan ayay ciidamada booliska Soomaaliyeed ay cadeeyeen waxayna sheegeen in uu qirtay in uu dilay saaxiibkiis arintaasina uu ka shalaytaysan yahay gabi ahaanba haatan waa la hayaa ninkaasi gacan ku dhiiglaha ah waxayna laamaha ammaanka ay sheegeen in ay soo hortaagi doonaan maxkamadda dalka Soomaaliya waa tahay lacagtan ay labada wiil isku direen ma lacag ay shacabka Soomaaliyeed soo ururiyaanba mise waa lacag ay dawladda leedahay lacagtani waa lacag ay shacabka Soomaaliyeed qurba joogta u badan ay soo ururiyeen oo loogu talagalay in lagu afursiyo masaakiinta iyo sidoo kale agoontan aabahood yani ciyaalkii ciidamada booliska aabayaashood ay u soo halgamay dalka Soomaaliya agoonta ah iyo sidoo kale kuwa masaakiinta ee darbijiifka ah waxba iyagu haysanin gabi ahaanba dadkaasi ayaa loogu talagalay arintiina way socotay aad iyo aad daawada intaas ku soo koobanaa barnaamijka koobnaa aynu ku eeganay xaaladihii u dambeeyay caalamka iyo Soomaalida tan intaan barnaamijkan kiisa xiga aan halkan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo